عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قزي ابن حكيم ابن مرة. iyadoo ay weli socoto munaasabadaha lagu xusayo dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa madrasada Nuurul Absaar oo kamid ah madaarista xirada qaxootiga xagar dheer waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay dhalashada rasuulkeena suuban nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa soo qaban qaabiyay munaasabada macallimiinta ardayda iyo waalidiinta ay ubadkooda wax ka bartaan madrasada waxaa ka qayb galay gudoomiyaha guud ee culumaa udiinka ahlus sunna wal jamaa ee xiriyaha qaxootiga Dhadhaab Shariif Cabdullaahi Shariif Abuukar waalidiin macallimiin culumaa udiin arday iyo marti sharaf kale intii ay socotay munaasabada dabaaldega dhalashada nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa qaar kamid ah ardayda wax ka barata madrasada waxa ay munaasabada ka soo jeediyeen khudbado ku baxay luqadaha Carabiga Ingiriiska iyo Kiswahiliga iyo sidoo kale qasaa'idyo nabi ugu horeyn macallin Ibrahim Maxamed Sheekh Ibrahim Ansari oo ku hadlayay afka macallimiinta oo munaasabada ka jeediyay khudbad ayaa uga mahad celiyay marti sharafta ka soo qaybgalkooda munaasabada. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد إخوة الكرام إن شاء الله تعالى هذا كدي waxaan sii guda galaynaa xalfadeeni munaasabadeeni lagu weyneynayo oo lagu maamuusayay dhalashada xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam taasoo sidaad ogsoon tihiin laga bilaabo koodii bisha ilaa yawm hada xalfadeeda ay ka socotay dunida dacaladeedo waxaad ogsoon tihiin markaad eegto telefishinada iyo idaacadaha iyo facebookyada dhammaan caalamka muslimiinta dhan in laga dabaaldegayo laga ixtifaalayo xabiibka salawaatullaahi wasalaamu calayhi annaguna yacni muslimiinta dabaaldegaysaan ka mid nahay sidaa daraaddeed waxaan guda gelaynaa xalfadeennii oo ka socoto si toos ah uga socoto madrasada Nuurul Absaar oo kamid ah madaarista ka diiwaan gashan dalkan Kenya maadi iyo diiniba ku baxda kuna taala xirada xaga dheera gudaha masjidka weyn Al-Huda. وكما بدأنا في أول الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونختم في خطبتنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن من نسي الصلاة عليه قضي طريق الجنة ومن سلم عليه سلم الله عليه ومن صلى واحدا صلى الله بها 10. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى عليك الله يا علم الهدى وسلم مولانا عليك سرمدا. يعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وبها باجتماع أهل العلم وبها ينال المرء الفوز في الحال والمآل. Today we have some people who instead of fighting against the enemies of Islam fight against Islam but claiming to be fight against the Christians. They neglect many Islamic duties among them. The Mawlid Nabi bring and a blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala says in his Quran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast to the rope of Allah and don't separate. Je, nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume wa Mungu aliyetumwa kwa umati wote ulimwengu mzima, hali kadhalika ni mtume wa mwisho. Kwa hivyo yeye ndiye kiongozi wa mtume wote, yeye ndiye kiongozi wa watumwa wote. Mtume wetu alizaliwa wakati wa usiku Jumatatu. Muhammad ya Rasulullah sallallahu Muhammad ya Rasulullah
وسلم محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم المولى محمد يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله بدركم يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله بدر وقم لله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله بدر وقم لله أفضل خلق الله يرجى رسل الله عند علي الله اشفع لي خلق الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله بدر وقم لله عباد الله مسلم والله لما من الدواء ومن الإله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله بدر وقم gudoomiyaha guud ee culamaa udiinka ahlusunna wal-jamaaca ee xeryaha qaxootiga dhadhaab shariif cabdulaahi shariif abuukar ayaa muxaadaro uu kaga hadlayay siirada nebiga iyo sifaadka wanaagsan ee rasuulkeenna uu lahaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee munaasabadda ka soo jeediyey waxa uuna gudoomiyaha dhinaca kale aada u bogaadiyey macalimiinta iyo ardayda isku xilqaamay qabashada munaasabadan. إلهي سبحانه وتعالى ومهزكله سوكا يكيني محفل كان قيمة بدن مدرسة نور الأبصار وأحمد من مدارس أهل السنة والجماعة ومن الأولى المدارس مدارس أول أهل السنة والجماعة اسكالها يا إليين لقاء أصري مخيم كان محررا بحديدة مدرسة صيام جونا مدرسة سواء مدرسة كلية إن بدنا كسر تخرجين در رجالا ونساء الرياضة السليم في أهل السنة والجماعة وكبرتي وعلى ما دعني الله سبحانه وتعالى أولا إن وافجيه إن نسوي معدنه حفلات الأمة مصيّة درشة رسولك عليه الصلاة والسلام وحن مرة بعض ما دعلنا يا معلمين تا يا والدين تا يا طلاب تمار ضيدا ويرلي قبل بره إصاق من قابية أمام موسى مر والبا سرد والبا حلي كانوا كلا إن سوق كان يجرا جودي خرج كوب بحية إن السميان مناسبة لوحصة هيو درشة رسولك عليه الصلاة والسلام وحلينا هاي جزاكم الله خيرا وحلينا هاي قلبينا الله كبوحيو إلهي رسولك سا محبديسا يا محبة أهل الله هيجا وحلينا هاي أردديني أتكد دارسين الله إذا كغدي وقوة انتفاع على الدنيا آخرة إذا نفعه أنت أكيد محبتي في الله وعن موضوع الدور بدينا كديغو صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة من صفات رسول كاين اسكبر الجنو صفة اسمه حوية وعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عفو جيسا يسوس بعفين جري عفين النبي قلت عفين جري يسور كم إذا قاركو النبي عليه الصلاة والسلام وانت أسمي يا إلهي سبحانه وتعالى وحو يري رسولك عليه الصلاة والسلام يعني أحبابي في الله رسولك إلهي النصر عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد نبي قاس قريشي إلهي سبحانه وتعالى عالم قد قدرتي ونقضي أحد خير قبلنا عالم كيسا يا رسول كان لو قد إلهي بصوت دياري عز وجل إلهي بصوت دياري وصوت دياري إنقاذ إنه سمايو بدبادو عالم كونه كوريو ككوريو ظلمي ونكوريو نور الإيمان ما أنت قيامنا إلهي إن بدل مخلوق خير بدأ وجنة ديسا أول مرة نقدقه نبي سببت عليه الصلاة والسلام
haddaba nabigaas calayhi salaatu wasalaam nabi diyaarsan buu ahaa maalinkii la abuuray ruuxdiisii ilaa iyo hadduu diyaarsanaa bictiga lagu sameeyey waxaad garanaysaan inuu ilaahay diyaariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam nasabkiisuu dahiray nasabkiisii oo dhan nadiif waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam muslim warinay sanadkiisa ku warinaya wuxuu saxiixa ku warinayo wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doortay duriyadii nabiyullahi ismaaciil wuxuu ka doortay kinaana reer kinaana ilaahay wuxuu kasii doortay buu yidhi nimanka la yidhaahdo quraysh ilaahay wuxuu kasii doortay banu haashim anigu iga sii doortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed anigu waxaan ahay doorkiisan ahay buu yidhi mid la doortay mid laga sii doortay baan ahay buu riwaayo kale wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni ima soo taabanin min sifaaxi ljaahiliya shay jaahiligu biyodulmadooda wasakda ahayd ee zinada ahayd ima soo taaban buu yidhi min abii wa ummii ilaa aadam laga gaaro marka ilaahay ba ilaaliyey sala allahu calayhi wasalam waa diyaarsana waxaa ilaahay dan u dahiray oo ilaaliyey magaaladu ka soo baxay oo makal mukarama laga dhigay oo magaalo mukarama ilaah sharaf ku leh ah xilliguu soo baxay baa la daneeyey oo ilaahay uu daneynayey waad garanaysaan xadiid imaam bukhaari warinay macnihiisu wuxuu ahaa nabiga calayhi sala slam inuu yidhi anigu ilaahay wuxuu soo saaray buu yidhi bacahanii min khayri quruni bani aadam qarnan fa qarnan ilaa laga soo gaaro qarnigeygii aan soo baxay buu yidhi yacni mar walba nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu waafajinayey salaaladaysa iyo abtirkiisa quruun wanaagsan inay joogaan sidaa darteed axadka la doonayo inuu sameeyo wax weyn qabto waa la soo dhisaa waa la soo hagaajiya waa la soo tarbiyeeya ilaahay baa soo tarbiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam adabanii rabbii fa axsana ta'diibii buu yidhi anigu ilaahay edbiyey edabteedina waa soo wanaajiyey buu yidhi ugu dambeyntii macalin maxamed bilo oo ka mid ah macalimiinta madarasada oo munaasabada soo xiray ayaa dhankiisa aada u bogaadiyey macalimiinta iyo ardayda juhdiga ku bixiyey qabsoomidda munaasabadda oo uu sheegay in sanadkan ay xil weyn iska saareen qabashada munaasabadan aadka u qiimaha badan. ikhwaanii wa akhwaatii axbaabii fillaah waxaan idinkaga mahad celinaynaa awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala baan u mahad celinayaa haaniyan culummadii aalubeydkii macallimiintii waalidiintii ardadii xafladdan ka soo qayb gashay soo qabanqaabisay iyo inta raalliga ka ah in la qabto xaflad nabiga calayhi salaatu wasalaam loo qabto la maamuuso ku faraxsan ayaan maaragtay mahadha ka gaadho sidaad ogtihiin waxaynu dhigaynaa maanta dhalashadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaflad ku saabsan ayaan maanta u dabaaldegaynaa waxaad aragtaan ee ku xiran daah ah ee salli ah ee alaab ah ee qurxin ah waxaa intaa qurxiyey waa ardadaa horteenna fadhiyo weeye waxay soo bilaabeen bishii hadda aan ku jirno bishii ka horraysay ayay qabaqaabadeedii bilaabeen li'annu annaga indhahaan ka fiirsanaynay bal sanadkan siday wax u dhigaan aad aragtaan baan lahayn waxba maana ku darsanin ka macallimiin ahaan hawshii sidii aan rabnay iyo sidii la rabay iyo meeshii aan doonayna bay ka soo baxeen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sanad walba oo na soo maro ixtifaalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam heer ayaan maraynay maantana heerkii ugu fiicnaa ayaan joognaa oo aan maraynaa
ma ahan markii ugu horeysay ee munaasabad lagu xusayo dhalashada nebiga lagu qabto madarasada Nuurul Absaar. Ardayda iyo macallimiinta madarasada Nuurul Absaar ayaa sanad kasta xil weyn iska saara qabashada munaasabadaha xuska dhalashada rasuulkeena suuban, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Mustaf Maxamed Xuseen, Mustaf Martile, TV Cable TV, xeryaha qaxootiga Dadaab, gobolka Waqooyi Bari Kenya.